dibadbaxyo lagu taageerayay shacabka Falastiiniyiinta oo maanta ka dhacay dalalka Islaamka. Shacabka Carabta oo laga cabsi qabo inay sameeyaan kacdoon ka dhana dowladahooda. Imaaraadka Carabta oo bixiyay saldhigga laga weerarayo Falastiina. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijka. Fadlan haddaad ku cusub tahay like inoo saar, subscribe desina share garay si barnaamijkeena asxaab badan u gaaro maadaama Israa'iil dagaal xoogan ay ku hayso dhulka reer Falastiina. Qodobka ugu horeeya ayaa noqon doona dibadbaxyo lagu taageerayay shacabka Falastiiniyiinta ayaa maanta ka dhacay dalalka Islaamka. Dalalka Islaamka maanta waxaa ka dhacay dibadbaxyo looga soo horjeedo dhibaatada Yahuudda iyo dalalka kale reer galbeedka ay ku hayaan shacabka reer Falastiina. Dowladda Mareykanka, Ingiriiska, France iyo Jarmalka iyo dowladaha kale ee reer galbeedka ayaa waxay taageero buuxda ay la garab taagan yihiin maamulka Yahuudda oo xasuuq ba'an u geysanaya shacabka reer Falastiin ee muddada dheer la soo daaladhacayay jirdila, kufsi, xarig iyo dilal. Waxaana haatan xasuuqa iska kaashanaya dhammaan dalalka reer galbeedka oo saanad military u diray dowladda Yahuudda iyagoo sheegay in mar walba ay garab taagan yihiin maamulka Israa'iil. Madaxda ururka Xamaas waxay sheegeen in ay u baahan yihiin ducada dadka muslimiinta meel walba ay joogaan. Ururka Xamaas ayaa Sabtidii waxay weerar ku qaadeen dhulka Yahuudda xoogga ku haysto ee reer Falastiina, halkaas oo khasaare xoogan loogu geystay Yahuudda. Shacabka Carabta oo laga cabsi qabo inay sameeyaan kacdoon ka dhana dowladahooda. Dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda waxay sheegeen in dowladaha Carabta ay wajihi doonaan kacdoon ka dhana Israa'iil iyo kan maamulada dalalkooda iyagoo shacabka Carabta aysan u dulqaadan karin dhibaatooyinka lagu hayo shacabka Falastiina. Israa'iil ayaa sii kordhinaysa weerarada ay ku hayso deegaanada dhulka reer Falastiina, waxaana ay sheegeen in ay burburin doonaan dhammaan kaabayaasha dhaqaalaha iyo wax walba muhiim u yihiin bulshada reer Falastiina. Israa'iil ayaa sheegtay in laga daadgureeyo shacabka Falastiiniyiinta marinka Gaza, waxayna ay doonayaan in duqeymo xoogan ay halkaasi ka geystaan. Dowlado badan oo caalamka ayaa ka digay dhibaatooyinka ka dhalan kara haddii Israa'iil weerar dhulka ay ku qaado marinka Gaza, waxaana la sheegayaa in Israa'iil halkaasi ay kala kulmi doonto jab aad u xoogan haddii ay gasho daanta galbeed. Laakiin khubarada dhanka militariga waxay sheegayaan in Israa'iil rajada keliya mise xalka keliya ay ku jabin karto ururka Xamaas ay tahay weerarada dhanka cirka ay la beegsanayso Gaza. Imaaraadka Carabta ayaa bixiyay saldhigga laga weerarayo Falastiina. Dalka Imaaraadka Carabta ayaa qorshu yahay in looga duulo shacabka Falastiina, waxaana halkaasi gaaray diyaarado dagaal oo leeyahay dowladda Mareykanka, kuwaasi oo la doonayo haddii ay xaaladda adkaato in ay dagaalka ku biiraan, maadaama Imaaraadka Carabta uu yahay dalka keliya ee reer Carabeed sida tooska u taageeray Israa'iil. Waxaana uu bixiyay saldhigga laga weerarayo dadka ay walaalaha yihiin ee reer Falastiina, xilli loo baahan yahay in ay garab istaagaan sida wadamada reer galbeedka ay u garab istaageen maamulka Yahuudda oo gardarada ku haysta dhulka reer Falastiina. Imaaraadka Carabta ayaa cambaareeyay weeraradii lagu qaaday ciidamada Yahuudda ee khasaaraha xoogan loogu geystay deegaanada ay xoogga ku haystaan, mana ka hadlin dhibaatooyinka Yahuudda maalmihii lasoo dhaafay ay u geysteen shacabka reer Falastiina oo laga jaray biyaha, cuntada iyo korontada. Ilaa iyo haatan kama hadlin dhibaatooyinka, waxayna ay ka hadashay keliya dhibaatooyinka ay Yahuudda loo geystay.